السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن ونكسن أخيار مال والباء جوكتان حل والباء يكوتهاي فضلا هذا القناة كان كعصب تهاي سبسكرايب هكا إلا وإن النو سارتد سيدو كلا فيديو جنا أشير جريسد والله جريسد وحيابها معلومات كم فائدة لا القناة كان أصور جنسي الكوسو جارن بهاد سنة أنتوا بدن لمانها إسقبا أمدتك هاساوي بروبلينا أيا سوى جا نيد ونكسن يكو هاساوان نيد ونكسن يسكو بورسدان نيد ونكسن أقل كل استان يكوي مادان لكن نلاش سنة هذا واحد كمده إن بروبلين خلاف ويماد dadka qaar waxa macquul ah inay u yaqaanaan lamaanaha aan isqabanin inay yihiin lamaano guuleysta ama guurkooda guuleysta inuu yahay ra'yigaas ra'yi aan ahayn dad baa qabo maxaa la yiraahdaa arrimaha qoyska iyo waxyaabahan ka hadla marka problem uu yimaado walwal ayaa soo waajaha labada lamaane qalbigooda dhaawac baa soo gaaro walwal baa soo gaaro walwalka inta badan wuxuu ku saleysan yahay guurkeena guuleysan doona ma noqon doona maadaama khilaafkan uu soo kala dhaxgalay mustaqbalkay ka walwalayaan walwal iyo walbahaar soo waajaha walwalkaas iyo walbahaarkaas wuxuu dabrayaa oo caqabad uu ku yahay in ay problemkooda xaliyaan ayuu caqabad ku yahay hadduu ilaahay yiraahdo videogan waxaan kugu soo bandhigi doonaa problemada khilaafyada lamaanaha soo waajaha qaabka loo xaliyo wadooyinka ugu wanaagsan oo loo xaliyo marka aad rabtid ugu horeyn inaad xalisid problem adigii lamaanaha soo waajahay waxa ugu wanaagsan qaabka aad ku xalinaysid inuu noqdo mid cod dheer aad isticmaalaysid inuu soo noqon codka dheer problem ayuu keenayaa qofka jeejah maxaa la yiraahdaa walwal ayuu ku abuurayaa qofka inuu control ku waayo qofka inuu iska caabin oo kaliya ku fikiro taasi way ay keenaysaa marka waxa muhiim ah istiraatiijiyada koowaad inaad isticmaashid ay muhiim tahay marka problem uu soo waajaho in cod dheer aadan isticmaalin aadan qayli sameeynin dawladaha ajaanibta ah ama ajaanibta markaan dhax socno anaga Soomaali ahaan cod dheer waan qana inaan isticmaalo markaan gaari saaranahay marka meel maqaaxi aan joogno waan isticmaalnaa ajaanibta laakiin waxay yiraahdaan dadkan problemiya ka dhaxeeyo attentionka markaan sheekaysanayno wayna soo fiiriyaan inta badan ayagoo la yaaban dadkan dad garar macnaheedu waxay u yaqaanaan codka dheer qofka bini'aadamku wuxuu u yaqaanaa khilaaf ayuu u yaqaanaa marka maskaxda qofka kale problemka aad rabtid inaad la xallisid wuxuu aaminayaa in qofkan qof ku qaylinayo qof khalqal gelinayo inaad tahay marka waxa muhiim ah inaad ku dadaashid inaadan isticmaalin cod dheer midda labaad aan rabo problemka loo xalliyo aan ku sheego ama aan ku faa'iideeyo waxay tahay inaadan problemka markaad rabtid inaad xallisid lamaanaha aad la joogtid xilliga maxaa la yiraahdaa caruurta ay meesha joogaan aadan ku fikirin inaad xallisid problem caruurta mustaqbalkiina way mirihiina weeyaan waxa fiican qalbigooda inaad ilaalisid aadan ku fikirin xilliga inaad gabadha la hadashid sidoo kale gabadhana aysan ku dadaalin xilliga ilmaha ay meesha joogaan inaysan maxaa la yiraahdaa zawjkeeda problemkii ka dhaxeeyay aysan meesha keenin ama aysan ku fikirin xilliga inay xalliso waa midda labaad midda saddexaad waxay tahay waqti wanaagsan in qofku uu dooro problemka in lagu xalliyo xilli waxa jirto zawjkaaga ama gabadha shaqo ka soo baxday la wada daalan yahay ka waran xilligaas hadaa ku fikirtid in problemka aad xallisid ama maana mar uu shaqo ka yimid albaabka uu soo galay aad ku fikirtid inaad xallisid aad tiraadid haddeeraan wada hadlaynaa ama qaylo aad ka horgeysid oo wax laga wanaagsan yahay mana aha waxyaabahan oo idil waxyaabo problemka xal u keenay laakiin problemka jira waxay ku ziyaadinayaan problem kale sidoo kale mid afraad waxay tahay problem hore u jiray oo maxaa la yiraahdaa hore loo soo gudbay inaad tiraadid aad meesha keentid oo wax laga wanaagsan yahay kaba soo qaad in khilaaf hortiina u dhacay maxaa la yiraahdaa la xaliyay ama go'aan aad ka gaarteen xalliseen aw tanaasusha ama ku tanaasulay ma aha in problem kale markuu yimaado aad soo qaadid darasana sameysay maalinkii ka horeysana sameysay aad tiraad problem walba xilligiisa marka la xalliya waa laga soo tagay saa ugu soo tagteena meeshaas ugu haraya mar walba midka aad taagantiina waxa wanaagsan inaad xallisaan ma aha inaad soo qaadid ilaahay subxaanahu wa ta'ala dunuubta hore loo galay marka dambi dhaaf aad la timaadid xataa wuu ku saamaxaa kuma soo qaado dambi hore aad dambi dhaaf wala timid kuma soo rara marka saa darteed khaladaad ka dhaca famriga dhaxdiisa ka dhaca haddii laga soo gudbay xal u hesheen ama saamaxaad iyo wax ay yimaadeen inaad soo qaadid hadda kor saana sameysay
mid wax xalinaysa ma aha ay problemka jira unbaa problem kaleeto kusoo siyaadaysa. Midda shanaad waxay tahay inaad aqbashid adigan dhageysanayo inaad aqbashid tanaasul waxa hadaysan wax muhiim aysan ahayn tiirarka guriga uu ku taagan yahay aysan ahayn inaad ku fikirtid inaad tanaasul aqbashid wax laga tanaasul kara hadayeen ha ku noqonin mara ku dhig ha ku noqonin maxaa la yiraahdaa go'aankeyga kaliya meel maraayo qof dhahayo ha noqonin tanaasul aqbal waxa haduu asaga ku tanaasul waayo ama iyada ay ku tanaasul weyda aqbal waxaas hadaysan ahayn wax tiirarka ugu muhiimsan guriga aysan ahayn wax tiirarka muhiimsan guriga haduu kamid yahayna waad ka dhaadhicinaysaa waqti baad la raadinaysaa waqtiga ay qofka wax fahmayaan la raadinaysaa waad ku dadaalaysaa laakiin ha ku fikirin waxa ugu horeeya marka isqabataan khilaaf u yimaado waxa ugu horeeya xal noqonaya inaad kala tagtaan maaha problemada qaar lamaanaha marmarka qaar waxa la yiraahdaa wadajirkooda noloshooda muhiim u tahay in la xaliyo marka kadib riniyo la isku soo sameeyo ay yiraahdaan maxaa la yiraahdaa qolyaha arrimaha qoyska ka hadla insha Allah intaas ku soo koobayna marka wadajirka qoyska wuxuu muhiim u yahay inta badan labadiinan wadajirka qoyska labadiina ayuu muhiim idin yahay ilmihiina inaad ka fikirtaan oo aad qofka kale aad ka fikirtid wuxuu ugu dhigay sababtu uu leeyahay go'aankan kama tanaasul karin waa inaad fahamtaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi